kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa labada bisha 12 sanadka 2024 qodobada ugu waaweyn wararka aan idin haynana waxa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qalad weyn galay kadib markii xero uu ku magacaawna jenaraal Soomaaliyeed oo dhintay dalka dartiisa uu ku bedelay mid imaarada dhaleeceynta iyo weerarka madaxweynaha looga hayay saacado baraha bulshada kadib talaabo ceenkay ah ayuu qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta qaaday talaabo kale oo kaga sii daraysa xiisada ka taagan nooca doorasho ee uu doonayo dalka inuu ka qabto guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay oo iyana maanta doortay hoggaan wararkii ugu dambeeyay duqeyn culus oo ka dhacday duleedka Balcad war cusub oo ka soo kordhay dagaal beeleedka xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dawladda Faransa oo Soomaaliya ka cafisay deen dhan 145 milyan oo dollarka Mareykanka intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalkan like sar share kare oo la wadaag saaxiibada ad ku mahadsan tahay inaad mar walba la socoto wararka aanu halkan ku soo gudbino haatan warkiyo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku kala bedelay magacyada laba xeer ciidan kuwaas oo kala ah Damaanyo iyo Jenaraal Gordon xerada Jenaraal Gordon ayaa loogu magac daray Colonel Maxamed Mubarak Al-Mansour oo ahaa sargaal Imaaraadka Carabta u dhashay oo hogaaminayay howlgalka tababarka Imaaraadka wareegtada madaxweynaha waxay u dhigneed sidan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay inay ku habboon tahay in loogu magac daro shahiid Colonel Maxamed Mubarak Al-Mansouri waxa uu madaxweynaha soo saaray xeerkan kaasoo dhigaya in laga bilaabo maanta xeradii hore ee Jenaraal Gordon loogu magac daray Colonel Al-Mansouri sargaalkan waxaa lagu dilay xeradaas 10kii Febraayo ee sanadkan xilligaas oo Imaaraadka uu soo gaaray qasaarihii ugu xooganaa intay joogeen gudaha Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha waxa uu xerada Damaanyo ugu magac daray Sareeye Guuto Maxamed Ibrahim Faarax Gordon haddaba wareegtada xeerka madaxweynaha oo soo baxday waqti isku dhow ayaa waxa ku soo horeeyay baraha bulshada oo aad u qabsaday mid kamid ah warqadda magac bedelida gaar ahaan xeradii hore ee Jenaraal Gordon tan loogu magac daray madaxweynaha si weyn ayaa loogu dhaleeceeyay in xeradii hore ee Jenaraal Gordon uu magaca ka bedelo oo ugu magac daro sargaal shisheeye inkastoo markii dambe madaxweynaha xero kale uu Jenaraal Gordon ugu magac daray dhinaca kale Xasan Sheekh waxa uu qaaday talaabo kaga sii daraysa xiisada ka taagan doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku soo saaray guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha guddigan oo muran badan uu ka taagnaa doorashada loo igmaday ayaa waxa hore u ansixiyay laamaha fulinta iyo xeer dejinta dawladda federaalka xubnaha guddigan oo ka kooban 18 xubnood ayaa isla maanta waxay doorteen hoggaan cusub iyadoo gudoomiye loo doortay Cabdikariin Axmed Xasan halka ku xigeen loo doortay Saadiq Abshir Garaad guddigan waxay ka shaqeyn doonaan maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo inay hirgeliyaan doorashooyin qof iyo coda taasoo gadaal ay ka riixayso filla Soomaaliya qorshaha doorasho ee Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo waxa si weyn u diidan madaxdii hore iyo xubnaha mucaaradka u arka in madaxweynaha uu kaga dan leeyahay damac muddo kororsiya sidoo kale waxa hanaankan doorasho iyo wax ka bedelka dastuurka ka soo horjeeda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo waliba Jubbaland haatan dawladda federaalka dagaal culus uu kala dhaxeeyo kadib markii Axmed Madoobe uu Kismaayo ku qabsaday doorasho mar saddexaad uu ku soo baxay si kastaba talaabadan waxay kaga sii daraysaa xiisada hadda taagan ee ka dhalatay arrimaha doorashooyinka waxaana muuqata in Xasan Sheekh uusan ka laabanayn qorshihiisa ayna ka go'an tahay inuu dagaal la galo ciddii ka hortimaada sida haatan ka taagan Jubbaland oo kale dhinaca kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn xoogan oo diyaarado dagaal ay ka fuliyeen duleedka degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe taasoo la beegsaday goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka shabaab duqeyntan oo ahayd bartilmaameed ayaa si gaar ah kaga dhacday inta u dhaxaysa
deegaanka Xawaadley iyo degmada Balcad halkaasoo dhawaan uu ka dhacay weerar ay al-shabaab ku soo qaadeen ciidamada dawladda kaasoo dhaliyay khasaare kala duwan. wararku waxay intaas ku darayaan in duqeynta la eegtay saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen halkaasi waxaana gaaray maleeshiyaadka khasaare culus. xogta ayaa sidoo kale sheegaysa in la burburiyay saldhigyo iyo xarumo muhiim ah oo kooxdu ku lahayd aagga ay duqeynta ka dhacday iyadoo uu sii dheer yahay khasaaraha kale oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xawaadley oo ay hore kaga baxeen ciidamada ADMIS ayaa waxa maalmahan culays soo saaray maleeshiyaadka shabaab oo weerar ku hayay saldhigyada ciidamada dawladda. dhinaca kale wararka naga soo gaaraya Hirshabelle waxay sheegayaan in maanta xaalad deganaanshaha laga dareemayo deegaanada dhaca xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo indhawaanahan ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeled. xiisadan oo saameyn ku yeelatay deegaanka ayaa waxa ku baxay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo dadaal nabadeed oo dheeraada ka bilaaba halkaasi. qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha waxa looga hadlay colaadan iyo halka ay marayaan dadaalada uu sameeyay maamulka gobolka. Wehliye waxa uu shaaca ka qaaday in nabaddu ay tahay lama huraan isla markaana ay ku dadaalayaan sidii heshiis loo kala dhaxdhigi lahaa labada beelood. sidoo kale waxa uu intaas ku daray inay ka go'an tahay xal u helista dagaal beeleedyada ku soo laalaabtay deegaanada ku yaala xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kuwaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha dadka deegaanka ee ku dhaqan halkaasi. deegaanada Hirshabelle waxa marar badan ku soo laalaabtay dagaal beeleedyada oo la degay horumarkii labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. ugu dambeynna dawladda Faransa ayaa Soomaaliya ka cafisay deen dhan 145 milyan oo dollarka Mareykanka. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige iyo safiirka dawladda Faransiiska ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku kala saxiixday safaaradda ay Faransiiska ku leedahay magaalada Nairobi heshiis lagu soo afjaray deemihii dawladda Faransa ay ku lahayd Soomaaliya. munaasabad kooban oo ka dhacday safaaradda Faransa ee Kenya waxa ka qayb galay safiirka Soomaaliya ee Kenya u fadhiya waxaana Soomaaliya looga cafiyay deen dhan 145 milyan. heshiiskan maanta deenta badan looga cafiyay Soomaaliya ayaa waxa uu soo maray dhowr waji waxaana qayb uu ka yahay go'aankii ay gaareen horraantii sanadkan wadamada ku bahoobay ururka Paris Club. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa saxiixay heshiiska kadib waxa uu ka dhawaajiyay intani ay guul u tahay shacabka iyo dawladda Soomaaliya waxaana ay ka qaadi doontaa buu yiri culayska dhaqaale ee deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. dawladda Soomaaliya waxay dadaal dheer u gashay sidii maroon Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha la degay waxaana tani ay ka saaciday in hay'adaha dawladda ay noqdaan kuwa lagu kalsoonaado marka loo eego inay qaadeen nidaamka hay'adaha dawliga ee caalamka. guudana saaxiibayaal waa nageynta warka channelka dabagalka wararka oo diyaad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe saar muuqaalkan like saar share gareeyo oo la wadaag saaxiibada. Ad kuma aasan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.